kulanti wanaagsan halkan warqaatiyuub waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda Soomaaliyeed kaga hino kooda ugu waaweyn madaxtooyada Soomaaliya oo dejisay qorshe jawaab oo go'aan kasta ee ka soo baxa shirka mucaaradka uga socda magaalada Muqdisho maxaa ka jira madaxweyne Farmaajo in dhinacyada shirsan uu sheegay go'aan lama filaan ah oo niyad jab ku abuuray musharaxiinta xilka madaxweynaha oo duulaan culus ku maamulada Galmudug iyo Hirshabelle xilli laba garab ay isku qaybiyaan xog ayaan idinkaga haynaa qorshaha arrintan ka dambeeya xasan sheekh maxamuud oo qaran dumis ku tilmaamay taliyaha Nisafaad Yaasiin kuna dhawaaqay inay ka difaacayaan in dalkan burbur uu horseedo cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo markiisii ugu horeysay ka hadlay musharaxnimada xasan cali kheyre oo kamid ah shakhsiyaadkii u gacan galiyay Itoobiya haddaba muxuu ka yiri rabitaanka xilka ugu sareeya dalka xasan cali kheyre wararkeena kale waxa kamid ah maxaad ka ogtahay qorshaha ka dambeeya ciidamada Turkigu uu tababaro in la baro luqadda Turkishka wargeys caalami ah oo arrintaasi daha ka roga ayaan idin haynaa qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa warka insha Allah waana xataa taariikhdu ay ku beegan tahay 22 bisha 12 November sanadda 2020 daawada nagala qayb qaado faafinta warkan adigoo gaarsiinaya saaxiibadaada kuna share garanaya baraha bulshada waad ku maasantahay qaybta commentiga haddii aad noogu reebto aragtidaada mar kale kulanti wanaagsan aynu ku bilowno warka warqaatiyo musharaxiinta mucaaradka dawladda federaalka Soomaaliya oo shir shalay uga furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa waxa shirkoodan oo aad ay ugu lafagurayaan arrimaha siyaasadeed ee dalka ay ka soo saari doonaan go'aano ay ku diidan yihiin qaabka xilligan loo wajahayo doorashada Soomaaliya ayna ku xoojinayaan go'aanadii hore ay ku diidan inay ka qayb galaan doorasho ay maamulayaan guddiga doorashooyinka ee Villa Soomaaliya ee soo magacowday oo ay u arkaan inay yihiin kuwa u xaglinaya sidii mar kale uu ku soo laaban lahaa madaxweyne Farmaajo dhexdhexaadna aan ka noqon karin arrimaha doorashooyinka sababaha ugu waaweyn ee diidmadoodan ayaa waxay tahay in ay dhaliilsan yihiin guddiga doorashooyinka oo ay sheegeen inay ku jiraan shaqaale dawladeed iyo xubno ka tirsan hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA saraakiil ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ayaa bilaabay kulamo gaargaar ah oo ay kaga tashanayaan shirka Muqdisho uga socda musharaxiinta iyo sida laga yeeli lahaa go'aanka la filayo inuu ka soo baxay shirkaasi ay isla qaataan musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya iyo xubnaha mucaaradka ee shirkaasi ka qayb galaya madaxda dawladda ayaa isha ku haya natiijada shirkaasi ka soo bixi karta iyo tilaabada xigta ee ay qaadi lahaayeen haddii musharaxiintu ay qaadacaan doorashada madaxweynenimo ee dalka inay ka qayb galaan go'aan cadna iska taagaan madaxtooyada Soomaaliya oo looga bartay in marka dareenka siyaasadeed uu u weecdo dhinaca mucaaradka ay ku disho dhacdooyin kale ayaa waxa aysan qaadin tan iyo markii shirkan uu furmay wax tilaaba waxaase macquul ah in ay taasi ku beegto go'aanka shirkaasi ka soo baxa marka lagu dhawaaqo Villa Soomaaliya ayaa waxa ka go'an inaysan marnaba isbedel ku samaynin guddiga doorashooyinka taasi oo haddii ay dhacdo ay u aragto fashil siyaasadeed iyo sidoo kale masraxa siyaasadeed oo ay ku fashilantay loogana adkaan doono sababta ugu weyn ee diidmada ayaa waxay tahay in Villa Soomaaliya ay rumaysan tahay in mucaaradka markii hore aysan kaalin ku lahayn magacaabista guddigan oo ay ahaayeen arrin u taala dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada dalka marnaba aysan jirin ilaa iyo hadda dawlad goboleedka si rasmi ah u diiday in kasto Jubbaland iyo Puntland wali aysan soo magacaabin xubnaha guddiyadaasi ku matali lahaa waxaana la rumaysan yahay Jubbaland iyo Puntland inay la safan yihiin xubnaha mucaaradka si kastaba madaxtooyada Soomaaliya ayaa wajahaysa cadaadis badan oo dhinaca mucaaradka uga imaanaya iyo xubnaha beesha caalamka oo dhankooda cadaadis saaraya waxaana suurtagal ah in ugu dambeyntii ay u hoggaansanto haddii beesha caalamku ay la safato mucaaradka go'aanka ay soo saaraan bayaan ay dhowr maalmood ka hor soo saareen beesha caalamka ayaa waxay ku dalbadeen in xal waara laga gaaro arrimo dhowr ah oo taagan oo badankood lagu eedeeyay dawladda federaalka Soomaaliya waxaana ugu waaweyn arrimaha doorashooyinka ee cabashada ay ka muujiyaan mucaaradka kasii daran haddii Puntland iyo Jubbaland si rasmi ah ay uga aragti duwanaadaan dawladda federaalka Soomaaliya kuna aragti noqdaan mucaaradka ma jiro xal aan ahayn beesha caalamka in cadaadis ay saarto Villa Soomaaliya waxaana Villa Soomaaliya markaasi ku qasbanaan doontaa in isbedel ay ku samayso guddiga doorashooyinka ee hadda ay ku adkaysanayso in aan waxba laga bedelaynin doorashadana lagu wajahayo qaybihii hore ee warka warqaatiba ay daawanaysan xog aynu ka helnay qorshe ay Muqdisho ka bilaabeen musharaxiinta shirka uga furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa sheegaysa inay isku qaybiyaan laba garab oo ay ku wajahayaan siyaasadda xilligan taagan ee dalka qorshaha ayaa ah sidii wax looga bedeli lahaa guddiga magacaaban ee doorashooyinka gaar ahaan kuwa laga soo magacaabay dawlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabelle laba garab ayay isku qaybiyaan musharaxiinta oo u badan
kuwa ka soo jeeda galmudug iyo hirshabeelle waxaana labadan garab ay isku qaybiyaan xubnaha musharaxiinta ay yihiin kuwa kulamo la qaadanaya madaxda galmudug iyo hirshabeelle xogta aynu helnay waxay intaasi ku sii daraysaa in musharaxiinta kale ah xasan sheekh maxamuud xasan cali khayre cabdikariin xuseen guuleed daahir geelle cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo mustaf dhuxulow loo diray in ay kulamo la soo qaataan madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor kana soo dhaadhiciyaan in isbeddel lagu sameeyo xubnaha guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka galmudug ay u soo magacowday sidoo kale xubnaha kale ah sheekh shariif sheekh axmed cabdulqaadir cosoble iyo maxamed siriin ayaa loo diray dhankooda inay kulamo la qaataan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawi xuseen si looga dhaadhiciyo isbeddel inuu ku sameeyo guddiga doorashooyinka ee hirshabeelle iyo xubnaha xalinta khilaafaadka ku metelaya dowlad goboleedka hirshabeelle musharaxiinta kale ah xasan cali khayre xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed cabdiraxmaan cabdishakuur warsame cabdulqaadir cosoble daahir maxamuud geelle mustafa sheekh cali dhuxulow cabdikariin xuseen guleed iyo shariif xasan sheekh aadan iyo xubno kale ayaa waxay u ballansan yihiin kulankooda koobaad ee ay ku wajahayaan xubnahan kulamada ay la qaadanayaan waxaana inta badan xoogga ay saarayaan sida ay kaga dhaadhicin lahaayeen madaxda maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug in isbeddel lagu sameeyo xubnaha guddigaasi dhanka kale warar hoose uu helay warqaad tiyub ayaa sheegaya in haddii laga ohol waayo madaxda maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug ayna ku soo guuldaraystaan xubnahan loo diray inay ka soo dhaadhiciyaan isbeddel lagu sameeyo xubnaha guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ay ku eedeynayaan inay ka tirsan yihiin xubno ka tirsan dhisa ay abuuri doonaan amaba ay qaadan doonaan musharaxiinta qorshe kale ay ku wajahayaan dowlad goboleedyadaasi waxaa la soo warinayaa in xiriir wanaagsan haddaba ay la sii samaysanayaan musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya xildhibaanada labada dowlad goboleed ee galmudug iyo hirshabeelle si ay ugu kiciyaan madaxweynayaashooda haddii arrintan ay suurto gali weyso oo ay ku adkaystaan madaxda galmudug iyo hirshabeelle in aysan isbeddel ku samaynin xubnaha guddiga doorashooyinka mooshinno la abaabulayo iyo waxyaabo kale oo la isku xirayo si xilka looga tuuro dhankooda madaxdaasi ayay qorsheenayaan musharaxiintan sida xogaha hoose uu ku fahansan yahay warqaatiyo shabakada wararka ee warqad ayaad naga daawanaysaan qodobo kale oo xiisala arrimaha siyaasadda Soomaaliya daaranaya inoo soo socda balse markaan madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud haddana musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa weerar dhinaca afka uu ku qaaday taliyaha hay'adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir Fahad Yaasiin ayuu ku tilmaamay inuu yahay shakhsiga lagu sheego milkiilaha dawladda uuna burburiyay hay'adda nabad-sugidda NISA ciidamada dawladda iyo dhammaan siyaasadda dalka xasan sheekh maxamuud waxa carabka uu ku dhuftay marnaba inaysan ka aqbali doonin taliyaha NISA ee wax walba uu ku aaminay madaxweyne Farmaajo inuu burbur u horseedo dalka ina ka badbaadi doonaan ka musharax ahaan tan kulamada ay ka yeelanayaan arrimaha ugu waaweyn ay qayb ka tahay arrintaasi milkiilaha la sheegayo waa la wada garanaya safiirku milkiilu iskii laaka hore si socdon si sheega inaan saaxiibanahay dadkan yaqaaniin oo Fahad Yaasiin la yiraahdo madaxtooyada agaasimo ka noqday waa la ogyahay wixii madaxtooyada ka dhacay markuu agaasimaha ka ahay hay'adda nabad-sugidda uu tagay waa la ogyahay wixii nabad-sugidda ka dhacay uu kala diray nabad-sugidda waa dumiyey dumintii uu dumiyey ayada keligeed ma dumine ciidanka booliska Soomaaliyeed waa dumiyey nabad-sugidda uu kor dumiyey maantana siyaasadda waxa dumiyey waa isaga waay marka waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inay fahmaan saaxiibkay Fahad wiilkayga disaster uu ka shaqeeyo waana u sheegnay caawana publicna hoos waa ugu sheegnay publicna caawana ugu sheegaynaa siyaasadda oo ciidamadii xafiiskiisa ka shaqeynaya doorashada maamulana uu leeyahay waa dumin siyaasadeed waaye meeshana qusayso waaye amniga waxay eedahay ada khaas iyo dad khaas iyo waajibaad khaas midaan annagaa diidayno waxa maanta loo shirayo oo biri loo shirayo biri daba loo shirayo ka mid tahay xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayuu ahaa dhanka kale cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo horay dawladda federaalka Soomaaliya ay ugu gacan gelisay dawladda Amxaarada ayaa ka hadlay musharaxnimada Xasan Cali Khayre oo u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya kana mid ahaa shakhsiyaadka ugu sareeyay dalka xilligii loo gacan gelinayay cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax dawladda Itoobiya waxa uu soo dhaweeyay musharaxnimada Xasan Cali Khayre isagoo sheegay in aysan jirin shuruud ka hortaagan inuu qabto xilka madaxweynaha Soomaaliya ee dadibitaankiisana wuxuu dusha u saaray madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhanka kale wuxuu ka hadlay cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax raaligelintii Xasan Cali Khayre ugu tagay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame isagoo bogaadiyay arrimaha noocan oo kale inay yihiin kuwa looga baahnaa inuu qaado kol hore Xasan Cali Khayre aad baan u bogaadinaya talaabada uu qaaday aad baan u bogaadinaya shaqada inuu qabtana way waa sababta aanu leeyahay waxyaabihii dhacay wuxuu ku leeyahay
isaga ka timaado waxaas aanu wixii dhacay waxaasan ku lahaa hal laga raalaha qaybihii dambe ee warkaynu isla soo gaarnay siyaasadda Turkiga ee ku dhisan dhismaha ciidamada xoogga dalka oo ay yeeshaan dalalka xulufada la ayaa meelaha ay ka shaqaysay waxa ka mid ah Soomaaliya sida lagu daabacay bogga rasmiga ah ee The Jamestown Foundation. Ankara ayaa Muqdisho waxay u tababartay ciidamo kumaandoosa kuwaasi oo fuliya howlgalo gaar ah oo iskugu jira dagaalka lagula jira Al-Shabaab, xasilinta magaalooyinka iyo sidoo kale booliska qayb ka mid ah oo ay tababareen ciidamada Turkiga u jooga Soomaaliya qaarkoodna ciidamada waxayeen kuwa lagu soo tababaray gudaha dalka Turkiga sida ku cad warbixintan askarta casharada tababarka ay ku qaataan waxaa ka mid ah barashada luuqadda Turkiga waxa ayna kari karaan inay xitaa ku dhaartaan sida luuqadda hooyo ee Soomaaliya aqoonmadan ayaa lagu sheegay in tani ay qayb ka tahay qorshaha Turkiga uu ku wajahayo loolanka juqraafi siyaasadeed ee kaga imaanaya wadamada qaarkood saxaafadda Turkiga ayaa warisay in loolankaasi uu kaga imaanayo dalal Carbeed iyo sidoo kale reer galbeedka kuwaasi oo raba inay hoos u dhigaan amaba ay yareeyaan saameynta Ankara ay ku leedahay dhaqdhaqaaqyada qaliijka iyo sidoo kale gobolka Geeska Afrika xerada Turkiga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa waxa lagu soo waramayaa in dhismaheeda ay ku baxday adduun lacageed oo gaaraya 50 milyan oo dollarka Mareykanka waxaana qaybaha ay ka kooban tahay kamid ah garoomo ciyaareed barkado lagu dabaasho iyo goobo lagu barto luuqadda dalka Turkiga si kastaba dalka Turkiga luuqadda uu barayo ciidamada uu tababaro waxa lagu sheegay inay tahay siyaasad uu ku wajahayo dalalka kale ee doonaya inay hoos u dhigaan saameynta Turkiga uu ku leeyahay dalal badan oo gobolka guud ahaan taas ayaan ku soo gabagabeynaya warkaad kala socotaan warqaad YouTube daawada hadaad ku cusubtahay channelka nagu soo bir subscribe oo kuma kadibna fura gambalaalka waxaad noqon doontaa qofka ugu horeeya ee hela xogaha iyo macluumaadka halkan aynu ku soo daabacno tan iyo kulanti daba nabaday